isku duwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Salebaan Xasan Xaddi ayaa maanta shir jiraayad ku qabtay hotelka Rays ee magaalada Boorama isagoo ka warbixiyay howlgalka wanaagsan ay qabteen ciidamada booliska. Isku duwaha ayaa sheegay in la iska kaashado wuxuu ugu yeedhay xaalufka ba'an ee ka taagan gobolka Awdal isla markaana dhan mid looga wada jeesto xaalufka ba'an ee deegaanka ku saabsan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hawsha sida hagarlaanta uga howlgalay sidii u soo qaban lahaa dadka ka ganacsanaya in xawayaan gaar ahaan imika waxa gacanta lagu hayo oo ah diinka waxa imika saldhigga dhexe degmada Boorama ku xiran gawaari la kursala oo ay saaran yihiin gaariga halka la kursala lagu soo qaadayo yahay konton mid oo diina waa diinkii dhulkeena ku noolaa meel loo wada garanaysid runtii dad Soomaaliland kuma koobnaa waxa jira iyagoo faasitid garanayaan shilin marka la soo waxa weeyaan way ka howlgalayaan laakiin cidda hawshan involvedka ku ah waa dadka ajaanibka ee dibadda inaga imanaya taasoo aan maalin dhaweey dad ajaaniba oo si sharci darro soo galay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Luqaya aanu ciidanka nabadgelyada degmada Luqaya oo ka gacan galay inuu ka howlgalay oo aan iska kaashanay maayarka degmada Luqaya Salebaankooda taasoo markii howlgal xoog leh aanu sameynay qolyihii raadinay aan ku daba joognay aanu tagnay inuu boolis la socdo booliskaas oo runtii anagu markii dambe aan la yaabnay iyadoo oo laantii dawladda wasaaradii wax ku shaqo lahayd aan la soo wargelin maamulkii degmada halka aan la soo wargelin markii aanu soo qabanayna si degdeg loo sii daayay oo aniga iyo maayarkii degmada Luqayaba ay la yaab nagu noqotay in markii degdeg loo sii daayo. dhanka kalena waxa ka hadlay maayarka degmada Luqaya Salebaan Cabdi Cabdullaahi xukuumadda waxaanu faraynaa in arrimaha ugaarsiga ee ka jira dalka intiisa badan in ay xil la iska saaro shaqooyinkana cidii leh faraha loo qaado laguna hawlgeliyo. Maxamed Bilibili Harwanaag News magaalada Boorama.